kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkeenan waxaan ku soo gudbin doonaa siyaasiga Farax Macalin oo sheegay siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadka Soomaaliya ee ka degelaadahay iyo xiriirka kala dhaxeeya kooxda TPLF ee laga saaray siyaasadda dalka Ethiopia. Pakistan oo bahdilaad xun ku samaysay مسؤولين dalka Sacuudiga oo abuurtay buuq badani labada dal iyo warbixinada ugu dambeeyay shirka wada tashiga ee ka furmaya magaalada Muqdisho. madaxda maamul goboleedyada ee ka qayb galaya iyo xogaha kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. waxaa magaalada Muqdisho ka socda qabanqabadii ugu dambeysay ee shirka golaha wada tashiga qaranka oo ay ka qayb galayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada qaar ka mid ah oo lagu wado inuu furmo Isniinta. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay Muqdisho kula kulmay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, waxaana ay ka wada hadleen furitaanka shirka golaha wada tashiga ee ka furmay magaalada Muqdisho. kulankani ayaa ka dhacay hoteelka ay degan yihiin madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, waxaana sidoo kale diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa shirkani golaha wada tashiga qaranka. Afhayeenka ee u hadla xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa sheegay in maalmaha soo socda uu furmi doono shirkani, isla markaana inta badan madaxda maamul goboleedyada ay soo gaadheen magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale uu sheegay in madaxweynaha ee Koonfur Galbeed oo hore shirkaasi u qaadacay uu ka qayb geli doono una iman doono magaalada Muqdisho. waxaa socda diyaar garowga furitaanka shirka golaha wada tashiga qaranka ee uu iclaamiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo Muqdisho ka furmaya maalmaha soo socda. shirkani waxaa laga hadli doonaa dardargelinta doorashooyinka iyo dhamaystirkooda. waxaa magaalada Muqdisho ku sugan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabelle, Galmudug, Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo la filayo inuu yimaado, ayuu yidhi qoraal soo saaray. shirkani ayaa Rooble wuxuu iclaamiyay inuu dhaco 27 bisha Diseembar, balse dib ayuu u dhacay. dib u dhaca waxaa keenay khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha ayaa isku khilaafay dhowaan hadallo warbaahinta ay isweydaarsadeen, waxaana ka dhashay khilaaf sii xoogaysanaya oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kadib markii madaxweynaha uu sheegay in shaqada uu ka joojiyay wasiirka koowaad ee xukuumadda. siyaasiyiin badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibaddaba ayaa ka hadlay khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, waxaana qaarkood ay la safteen madaxweynaha halka ra'iisul wasaarahana kuwa kale ay la safteen. siyaasiga Farax Macalin oo hore u soo noqday gudoomiye ku-xigeenka hore ee baarlamaanka dalka Kenya oo si weyn loo yaqaano oo ku sugan dalka Kenya ayaa taageeray madaxweyne farmaajo, waxaana si adag uu uga hor yimi ra'iisul wasaaraha in awoodda uu murarsanayo. sidoo kale wuxuu tilmaamay in Soomaaliya ay ku sugan yihiin cadowga ee Soomaaliya, kuwaas oo xiriir la leh kooxda TPLF ee laga saaray siyaasadda dalka Ethiopia. Farax Macalin ayaa dhowr qoraal oo isdaba jooga oo kaga hadlayay xaaladda Soomaaliya ee khilaafka ka dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Farax Macalin ayaa sheegay indhuhu way arkaan, dhaguhuna way maqlaan. farmaajo kuma filna, laakiin si adag ayuu isugu dayay in duruufahani uu wax uga qabto. dalku wuxuu u baahan yahay taageero, nafurid iyo duco. uma baahna calooshood u shaqaystayaal ka raadsada shilimaad reer galbeedka kuwa cunaqabataynta ee gobolka riixa. Farax Macalin ayaa sidoo kale sheegay TPLF adeega sardoonka reer galbeedka, maamul goboleedyada Soomaalida, sardoonka dowladaha Carabta iyo sardoonka qaar ka mid ah wadamada ee Geeska Afrika ayaa had iyo jeer waxay ka shaqeeyaan sidii Soomaaliya ay ugu jiri lahayd xaalad fashilantay oo aan la cayimin. burcadbadeeda ayaa loo abuuray in lagu xado kheyraadka ee Soomaaliya. Farax Macalin ayaa sidoo kale sheegay isla weynidii ee Mille Sanaawi waxay isu rogtay qarowgii ugu xumaa. Soomaaliya waxay ogolaatay in waddankeeda la soo geliyo ciidamo, dabadeedna wuu qaatay. wuxuu ku lumiyey in ka badan 20,000 oo ciidamadiis ah, waxaana markaa kadib si aan dhammaad lahayn uu u bariyey in si ammaan ah uu ciidamadiisa u kala baxo Soomaaliya. aakhirkiina wuxuu u orday xadka, wuxuu ka qoomameeyey taxadar la'aantiisa maalintii ugu dambeysay ee noloshiisa. Farax Macalin ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn loogu yaqaano
taageerada madaxweyne farmaajo iyo siyaasadda ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo dalka Eritrea iyo sidoo kale dhaleecaynta wadamada reer galbeedka iyo gumaysiga cusub ee ku hayaan qaaradda Afrika gaar ahaan kala qaybinta Soomaalida. sidoo kale Faarax Macalin ayaa ugu yeedha madaxda maamul goboleedyada inay yihiin koox calooshood u shaqaystayaal oo ka ganacsada dhiigga ummadda Soomaaliyeed isla markaasna lacag ku qaata inay ka shaqeeyaan Soomaaliya inaysan degin. kale warbixinada kale ee xogaha dunidana dagaal u dhaxeeya dalka Pakistan iyo dalka Sacuudiga ayaa ka qarxay baraha bulshada, taas oo ka dhalatay markii ay Sacuudigu ay tilmaantay in mas'uuliyiin dalkeeda ay Pakistan u qaabishay si fool xumo ah. dadka Sacuudiga ayaa si cadhale waxay uga jawaabeen waxay ku tilmaameen aflagaadeyn oo uu fadhiistay wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan intii uu socday kulan uu la yeeshay safiirka dalka Sacuudiga ee Pakistan. waxaa si weyn baraha bulshada loogu dhaleeceeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan Shahid Maxamuud Qureishi iyagoo ku eedeeyay xushmad darro oo ku sameeyay safiirka Sacuudiga ee Islamabad Naif bin Said al-Mulki. Qureishi ayaa loo arkayay in lugtiisa midig uu dul saaray tan bidix kadibna uu jeediyay kabta dhanka safiirka ee dalka Sacuudiga, taa oo dad badan oo Sacuudiyana ay ku qeexeen aflagaadeyn cad. labada mas'uul ayaa ku kulmay si ay uga wada hadlaan dhacdooyinka gobolka iyo dib u eegid ku saabsan xiriirka labada dal, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay safaaradda Sacuudiga ee Pakistan. hase yeeshee dadka Sacuudiga iyo Carabta ayaa dhanka kale u eegayay kulankaasi oo ay ku tilmaameen bahdilaad. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan wuxuu safiirka Sacuudiga u qaabilay si aan hore loo arag ayuu yidhi mid ka mid ah dadka ka cadhooday falkani oo ku qoray Twitterka. haddii aanay jirin sabab caafimaad oo ku kalaftay wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan wuxuu ku kacay nacaasnimo iyo jaahilnimo kuna xadgudbay nidaamka diblomaasiyadeed. ay sidoo kale sheegeen haddii aan ahaan lahaa safiirka Sacuudiga waan isaga tegi lahaa kulankaasi, ayuu yidhi mid kale oo ka cadhooday kulankani. qof kale ayaa isagana baraha bulshada ku qoray edeb darro, maskax la'aan iyo dhaqan aan diblomaasi ahayn oo wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan uu ku sameeyay safiirka Sacuudiga. sidee ayuu uga aamusay aflagaadadani? dadka qaar kale ayaa habka aflagaadeynta ee Qureish u qaabilay safiirka dalka Sacuudiga ee Pakistan waxay barbar dhigeen hab ka wanaagsan ee uu la macaamilo diblomaasiyiinta kale, taas oo ay ku sheegeen inuu ugu talagalay. Pakistan iyo Sacuudi Arabiya waxaa ka dhexayn jiray xiriir diblomaasiyadeed iyo mid military oo qoto dheer. hase yeeshee xiriirka labada dal ayaa liitay sanadihii tegay kadib markii Islamabad ay diiday codsiga Riyaad ee ahaa in ciidan tabarucaada ay u dirto dagaalka dalka Yemen. Islamabad ayaa ka xanaaqday dhankeeda markii ay Sacuudi Arabiya ay diiday inay cambaarayso falalka ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee gobolka ay ku maraysan yihiin Hindiya iyo Pakistan ee Kashmir, iyadoo sidoo kale ay Sacuudi Arabiya soo dhaweysatay xiriirka diblomaasiyadeed ee dalka Hindiya. waqti sidoo kale ay hore u diiday Sacuudigu inay martigeliso dhowr shir oo ay dalbatay Pakistan, taas oo lagu cambaareynayay xadgudubyo dalka Hindiya ay kula kacday gobolka Kashmir. kadibna Sacuudiga ayaa uga dalbatay in si degdeg ah ay u bixiso Islamabad lacag deyna oo ay ku bixisay mashaariicda ee dalka Pakistan, waxaana xiriirka labada dal uu gaadhay meel cakaran. hase ahaatee sanadihii ugu dambeeyay waxay isku dayeen inay dib u soo celiyaan xiriirkoodii. xogeena waa naga inta xogaha kale dib ugu soo gudbin doono. nabadgelyo.